Mesut Ozil ma ahayn oo kaliya xiddig kubadda cagta saaxir ku ah, laakiin wuxuu ahaa astaan u taagan guusha muhaajiriinta ee qaaradda Yurub, isagoo ahaa maskaxdii ka dambeysay in Jarmalku ku guuleysto Koobka Adduunka ee 2014. Haddana sheekadiisu waxay isku beddeshay mid ka mid ah muranadii ugu xumaa ee soo mara taariikhda isboortiga casriga ah. Waa sheeko ka bilaabatay sacab iyo guul, balse ku dhamaatay eedayn, go'doomin, iyo fariisasho xanuun badan oo uu kaga tegay qarankii uu calankiisa kor u qaaday kadib markii uu dareemay in aan lagu ixtiraamin asalkiisa iyo aqoonsigiisa. Haddaba daawade, nala sii joog ilaa dhammaadka muuqaalkan. Waxaan ku soo qaadan doonaa 15 qodob ee ugu muhiimsan ee sharxaya xiriirkooda iyo siday wax u dhaceen. Hase yeeshee, is-xasuusin haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad soo booqato barteena YouTube, fadlan subscribe noo saar, sidoo kale like saar muuqaalka oo u share garee saaxiibadaada. Sidoo kale, haddii aad iga daawanayso Facebook page-keena Guriga Ciyaaraha TV, fadlan na soo follow garee, like saar muuqaalkan oo u share garee saaxiibadaada. Mahadsanid. Aan u sii gudagalno muuqaalkeena. Qodobkeena koowaad, sawirkii London May 2018. Wax walba waxay ka bilowdeen markii Ozil iyo Ilkay Gundogan ay magaalada London kula kulmeen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Sawirkaas oo la baahiyay xilli ay doorasho ka socotay Turkiga ayaa kiciyay carada siyaasiyiinta iyo shacabka Jarmalka. 2. Jarmalka ayaa su'aal ka keenay halka ay jirto daacadnimada Ozil, maadaama uu yahay muwaadin Jarmal ah oo asal ahaan Turki ah. Dad badan ayaa u arkayay sawirkaas mid muujinaya inuu taageerayo hogaamiye ay xilligaas isku xumaayeen dowladda Jarmalka. 3. Cadaadiska saxaafadda. Bild iyo kuwo kale, wargeysyada ugu waaweyn ee Jarmalka, gaar ahaan Bild, ayaa bilaabay olole xooggan oo ka dhan ah Ozil. Waxay ku sifeeyeen qof aan ku habboonayn inuu xirto maaliyadda qaranka, iyadoo la ilaaway guushii uu dalkaas u soo hooyay 2014. 4. Koobkii Adduunka ee 2018. Jarmalka ayaa wejigabax kala kulmay Koobkii Adduunka ee lagu qabtay Ruushka, iyagoo ku haray wareegga koowaad. Tani waxay Ozil ka dhigtay eedeysanaha koowaad. Inkastoo kooxda oo dhammi liidatay, haddana isaga ayaa dusha looga tuuray fashilka iyo guuldarrada. 5. Aamusnaantii dheerayd. Ozil muddo 2 bilood ah kama uusan hadlin arrintan. Aamusnaantiisa ayaa sii kicisay carada dadka, halka uu isaga aaminsanaa in ciyaaryahan ahaan loogu xukumo garoonka dhexdiisa, balse aysan ahayn nolosha gaarka ah. 6. Warqaddii sagootinta July 2018. Ozil ayaa soo saaray 3 qoraal oo isdaba joog ah oo uu kaga dhawaaqayo inuu ka fariistay xulka qaranka Jarmalka. Qoraalkaas wuxuu ahaa mid xanuun badan oo uu ku weeraray madaxda xiriirka kubadda cagta ee Jarmalka. 7. Hadalladiisii caanka ahaa. Mid ka mid ah hadalladiisii ugu saameynta badnaa ee uu Ozil yiri waxay ahayd: "Haddii aan guuleysano, waxaan ahay Jarmal. Haddii aan guuldareysano, waxaan ahay muhaajir," ayuu ku soo koobay hadalkiisa. 8. Eedeymihii loo jeediyay Reinhard Grindel. Ozil wuxuu si toos ah u weeraray madaxweynihii DFB ee xilligaas, Reinhard Grindel, isagoo ku eedeeyay inuu yahay qof midabta koore ah oo aan ixtiraamin ciyaartoyda asalkiisa iyo diintiisa. 9. Ozil wuxuu caddeeyay inuu dareemay midabta koor dhab ah, isagoo sheegay in asalkiisa Turkiga dhib weyn looga dhigay, halka ciyaartoyda kale ee asalkoodu dibadda yahay sida Klose iyo Podolski aan marnaba su'aal laga keenin Jarmalnimadooda. 10. Kala qaybsanaantii bulshada. Arrintan waxay kala qaybisay dadka Jarmalka. Qaar ayaa u arkayay geesi runta sheegay, halka qaar kale ay u arkayeen mid aan ixtiraamin dalkii uu ciyaarayay. 11. Taageerada saaxiibadiisa kooxda. Ciyaartoyda qaar sida Jerome Boateng ayaa taageeray, halka qaar kale sida Toni Kroos ay dhaleeceeyeen qaabka uu Ozil uga fariistay xulka qaranka Jarmalka, iyagoo ku tilmaamay
eedeymihiisa midabta koorka ah kuwa macno daro ah. 12 Saameynta mustaqbalka ciyaartoyda muhaajiriinta ah. Dhacdadan waxay dhalisay dood weyn oo ku saabsan sida loola dhaqmo ciyaartoyda muhaajiriinta ah ee ku dhasha Yurub. Waxay cabsi gelisay dhalinyaro badan oo raba inay u ciyaaraan dalalkaas. 13 Difaaca qoyska. Ozil wuxuu sheegay inuu sawirkaas u galay si uu u ixtiraamo xafiiska ugu sareeya ee dalka waalidkii ay ka soo jeedaan, uuna u ballan qaaday hooyadiis inuu mar walba xusuusan doono asalkiisa. 14 Garowshyo dambe oo yimid. Sanado kadib, qaar ka mid ah madaxdii DFP iyo dadkii dhaleeceynayay ayaa qirtay in aan loola dhaqmin Ozil si cadaalad ah xilligii 2018 iyo in la dhibaateeyay isaga oo kaliya. 15 Dhaxalka Ozil iyo Jarmalka. Inkasta oo uu si xun uga tagay, Ozil wuxuu weli yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican taariikhda Jarmalka, isagoo u saftay 92 kulan, una dhaliyay 23 gool, uu sameeyay 40 caawin, iyo isagoo ahaa laf-dhabartii ku guuleysatay Koobka Adduunka 2014. Ugu dambeyn, waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii. Sheekada Mesut Ozil waxay tusaale u tahay loolanka u dhexeeya xirfadda ciyaaraha iyo aqoonsiga shakhsiga. Inkasta oo uu Jarmalka gaarsiiyay meeshii ugu sareysay kubadda cagta, haddana qaabkii uu ugu fariistay qaranka waxay daaha ka rogtay in weli ay jiraan caqabado dhanka midabta koorka iyo siyaasadda oo wajahaya ciyaartoyda muhaajiriinta ah. Ozil wuxuu garoonka kaga tagay dhaxal farsamo oo aan la ilaawi karin, balse ka baxsan garoonka wuxuu noqday cod u taagan xaq u dirirka iyo in qofka lagu ixtiraamo cidda uu yahay, iyadoo aan loo eegin asalkiisa ama diintiisa. Sheekadiisu waxay baal dahab ah kaga jirtaa taariikhda isboortiga, iyadoo xusuusin u ah in guushu ay macno beesho haddii aan lala helin ixtiraam iyo sinaan. Haddaba saaxiibayaal, waxaa intii noogu eg sheekadii u dhaxaysay Mesut Ozil iyo xulka Jarmalka. Intaan ku kulmi doono sheeko tan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.